السلام عليكم أصحابتا ku xiran jilay xirfad ku soo dhawaada muuqaal cusub kaas oo aan kaga hadli doono sida cryptocurrency loo maalgashado ama loo iibsado coin. Muuqaalkan waxa uu daaran yahay qodobo muhiim ah. Haddaba haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad hore noola joogtayna muuqaalkan like saar si uu gaaro asxaab badan. Haddii aanad hore u daawan muuqaaladeena cryptocurrency sida freega aan u soo dhigay channelkeenan jilay xirfad, halkaas ayaad ka daawan doontaa muuqaalada cryptocurrency. Marka muuqaalada aad soo daawato aad soo samaysato exchange waxaad iibsan doontaa coinankan aan ku sharxi doono qaabka loo iibsado. Muuqaalkan waxa uu kala bixi doonaa laba qayb. Waxaan ku tusayaa sida anigoo isticmaalaya mobile sida loo iibsado coinka XRP ama Solana sida loo iibsado. Labadabana waxaan ku sharaxayaa labada application exchange Bybit iyo Binance, labadaba aan kugu tusayo. Markaad muuqaalkan daawato xogtaasi aad ka bogato, muuqaalkan dhamayso si aad xogtaasi uga bogaato. Muuqaalkana like noog saar si uu asxaab badan u gaaro. Soo dhawaad muuqaalkeena maanta. Sidee baa loo iibsadaa coin markaad doonaysaa daba inaad coin oo iibsato? Intaanad iibsan coin waxa aad u baahan tahay inaad kala fahanto afar qodob oo muhiim ah. Afarta qodob oo kala noqon doona insha Allah. Afarta qodob ee muhiimka ah waxay noqon doonaan inaad coinka ka eegto afartan qodob ka uu yahay haddii uu coinku ku dhisan yahay blockchain sida Ripple. Marka coinkeena wuxuu noqonayaa marka XRP. Iminka blockchainku waa mashiinkii iyo warshadii soo kicinaysay shirkadiina magaceedii kan ayuu noqonayaa. Marka shirkadda coinkii waxa ay magacii u bixisay XRP, memo coinkii XRP ka si farcameyna wuxuu noqon karaa Nobos. Marka shaashada ayaan ka tusi doonaa. Token na waxa uu ka sii hooseeyaa memo coin sida airdrop yadii aan ka faa'iideysan jirnay sida hamster compoundkii iyo kuwaas oo kale. Adigu markaad iibsanayso waa inaad iska eegto inuu shaygan aad iibsanayso ama coinkan aad iibsanaysaa uu yahay token, memo coin inuu yahay, inuu coin yahay iyo inuu markaa halka ugu sareyso oo levelka ugu sareyso aan level aan la iibsan laakiin waxaad iibsanaysaa waa inuu coin yahay. Markaasi coinkaasina uu sii yahay blockchain. Marka blockchainka uu ku xiran yahay isaga kelidii. Marka blockchainkaasi yaanu noqon blockchain intaasoo coin ka sii farcama. Hadda coinkan waxa ka farcamay kan ayaa ka farcamay markasta oo kan la maalgashado oo lacag lagala baxayo net fee ayaa laga doonayaa XRP-da sida arkaysaan. Airdrop-kuna waa marka uu token soo yahay ee uu tiro ku jiro shaqadu socoto ayaa airdrop la odhanayaa, waa la qaybiyaa. Marka qofku waxa la ciyaara games hadhow marka uu ku guuleysto memo coin ayuu noqdaa. Kadib memo coin ayuu waxoogaa saacad ahaan doonaa. Kadibna intaa kadib coin ayuu noqdaa. Waxa la soo geliyaa exchange-yada waaweyn sida Binance iyo kuwaas ayaa la soo geliyaa. Kaasi aan toos u sii socono website-kan ayaa tagaysaa, halkan magaciisa ayaad ku qoraysaa. Kadib halkan ayaad ku soo dhufanaysaa chain rankings ay ku qoran tahay. Haddaan ku tuso Solana waxa ay tahay blockchain ayay tahay, waa blockchain weyn. Marka Solana blockchain tokenska ku xiran hadda ee la sameeyay waa 900 iyo 900 oo kun iyo 840 kaas ayaa ku xiran oo tokens ah. Total tokenska ku xiran weeyi. Kan kale waa Boss oo blockchain Ethereum oo blockchain BNB waa blockchain. Marka blockchainadan ayaa la iibsadaa marka hore oo la iibsadaa qofkuna markaas hadda total poliska la ixtiraacay ee suuqa ku jira. Kuwani waa memo coinska, kuwana waa tokenska aan weli la garanayn meel ay ku dhisan yihiin, war lagama hayo meel ay ka shaqeynayaan. Waa hamster iyo telegram iyo sidaas oo kale ayaa lagu soo dhisayaa. Marka dexeska ayaa la soo geliyay hadda 7 xabo oo kaliya ayaa 7 dexes ayaa la soo geliyay. Dexeskuna waa exchange-yada aan sida waaladada oo kale u shaqeeya ee aan hayn exchange aad passport iyo ID card ku samaysanso. Phantom ayaa kamid ah dexesyadaas iyo Trust Wallet ayaa kamid ah. Boss oo kale tan ayaa maal gashanaysaa coinanka aad iibsanaysaa ayay kamid tahay. XRP oo kale ayaad maal gashanaysaa, halkan ayaad ka eegaysaa XRP kuwaas ayaad maal gashanaysaa. Qaybtan waa shaashadii. Marka iyadoo oo la iibsanayana waan ku tusi doonaa qaybaha dambe. Marka hadda Solana waxaan uga baahanahay inaan fahmo marka hore waxaan iibsanayo. Hadda Solana ayaan iibsan karaa. Marka dadka qaar ayaa isku qalda memo coinku isagu waa la trade gareeyaa. Qaybta dambe ayaan ku soo qaadan doonaa laakiin qaabkan looga faa'iideysanayo memo coinada. Memo coinkan Solana ayaad ku sii dhulfanaysaa. Markaas hadda waxa la soo shaaciyay oo halay la iibsanayay sheekh Solana ay ku dul dhisan yahay.
waa memo coin ku dul dhisan Solana hadda memo coinada diyaarka ee la iibsoo geliyay kuwan ayaa kamid ah kaalinta koowaad kan ayaa ku jira kaalinta labaad san kuwan waa lagu trade garayaa oo shaashadan ayaad ka trade garaynaysaa adiga oo qaadanaya iyadana waxaan ka samayn doonaa cashar sida memo coinadan loo trade gareeyo qaybta dambe ee muuqaalkan ayaad ku baran doontaa marka halkan ayaad ku dhufanaysaa marka memo coinka aad doonaysa inaad iska hubiso memo coinka ayaad saa ugu jiidaysaa kadib marka aad ku jiido waxaad eegaysaa holderskiisa dadka trade garayna ee ku jira hadda waa 111,000 liquiditygiisa ayaad eegaysaa waxaad kaloo eegaysaa market capkiisa hadda kan 256 maraya hawadaas tegay wuxuu jiraa 2 cisho ayuu jiraa ayaa la soo geliyay 2 cisho ka hor ayaa la soo geliyay website-kan oo jira oo la soo sameeyay marka memo coin-kan token buu ahaa marka hore marka hadda waa memo coin hadhow memo coin-kan ayaa isku bedelaya coin oo wuxuu soo gelaya exchange-yada marka halkan uu ku sii dhisan yahay ayaa la iibsadaa oo laga faa'iideystaa halkan oo kale ayaad sidii suuqa caadiga uga trade garaynaysaa halkaa kusoo daato kadib halkaa marka kusoo daato ayaad kor u raacaysaa adiga oo halkaa ka gelaya kadibna markaas ayaad halkaa sare gaadho insha Allah muuqaal ayaan ka samayn doonaa marka halkaa sare gaadho ayaad ka degaysaa tokenadana sida loo baaro iyo sida waxaa jira filter waxaa jira filter ku sheegaya halkan oo kale filterada ayaad furaysaa kadibna filterada iyo sida loo buuxiyo muuqaalkan ku xiga ayaan ka samayn doonaa hadda waxaan u wareegi doonaa qaybta mobilka oo waxaan ku tusi doonaa laba exchange Binance iyo Bybit sida looga iibsado coin marka ugu horeysa waa inaad blockchain-nadan aad qorato dhammaan blockchain-nadan blockchain-nadan aad qorato kadibna exchange-kaaga aad gasho kadibna aad baadho anigu hadda san oo kale ayaan sameeyaa blockchain-nadan ayaan soo wada qortaa halkan ugu sareysa markaan ku dhufto website-kayga kale aan tago san ayaan sameeyaa halkan waa website-ka isna si gaara loogala socdo suuqa marka suuqa Bitcoin ayaa hogaaminaysa waxaad eegaysaa 1 hour-kii ugu dambeeyay hadda sare ayay u kacsanayd 24 saac ee ugu dambeeyay loss bay ahayd oo hoos ay u socotay sell bay ahayd marka kuwan halkan ayaad ka eegaysaa oo kala soconaysaa markastana waxaa la maal gashadaa oo la iibsadaa 15ka ugu horeeya halkaas oo kale ayaad hadda kuwan tigta saartay oo dhan anigu intaas sare ayaan ka iibsadaa marka kale XRP oo kale waan iibsaday Solana waan iibsaday Dogecoin waan iibsaday Cardona waan iibsaday iyaduna marka halkan waa maalinle ayaad kala soconaysaa website-kan magaciisa halkaas ayaad ku eeganaysaa oo aad ku qoranaysaa oo maalin kasta waad kala soconaysaa hadda blockchain-nadii aan ku lahaa waa la raadsadaa imika oo kale metalkaas oo kale hadaan mentaliskaas oo berihi ah haddii aan qaato oo waxaan tegaya xaggan kadibna qaybta searching-ka ayaan gelinayaa intii waa kan MNT ayaa loo soo gaabiyey mentalkaas oo kale ayaan iibsanayaa halkiis xabo wuxuu marayaa marka blockchain-ka wuxuu ku fiican yahay memo coin ayaa ku dhisan markastana blockchain-kiisu kor ayuu u kacayaa markaas portfolio-gan ayaad ku darsanaysaa markaas aan ku darsado aniga hadda hore ayaan ugu daray ku jira markaas saas ayaad tag u saaranaysaa hadhowna isaga ayaad iibsanaysaa waxaad eegaysaa market capkiisa waxaa kaloo eegaysaa circulation-ka supply-ga ku jira total supply-ga ayaad eegaysaa markii ugu horeysay waxaad kaloo eegaysaa low time all time lowgiisa ugu hooseeya wuxuu gaadhay 30 centi wuxuu gaadhay time high-giisii u sareeyayna wuxuu gaadhay $1.54 marka saasoo kale blockchain-nada ayaan kugula talinaa markasta inaad iibsato hadda halkan oo kale waxaa ku jira blockchain-no ayaa ku jira iyaga laftooda aan ku calaamadiyo BTC waa blockchain Ethereum-na waa blockchain XRP waa blockchain Solana waa blockchain BNB waa blockchain Dogecoin-kaas wuxuu isna waa memo coin Cardano waa blockchain Tron waa blockchain oo USDT-da ayaa ku dhisan oo iyada u noqonaysa coin u noqonaysa marka blockchain-nada sidaas ayaa la iskaga hubiyaa Solana oo kale waa onaga halkan ka tusayay waa blockchain imika Solana markaan tago intaas oo memo coin ayaa ku dhisan oo iyaga lacag ka helayso markasta oo iyaga la iibsado
markasta oo Solana coinskan ka hooseeya trade laga sameeyo oo lacag la gashado Solana waxay helaysaa net fee gaas ayaa kor u kobcinaya coinkan Solana marka coinkiina sare ayuu kacaya maanta waxay maraysaa 248 xabadeedu adu sanadkii hore 2024 waxay maraysay meelahaas 100 iyo waxbay ku bilaabantay 112 marka dadkii xilliga ka faa'iideystay ama laba mar iibsaday xilligan waxa haysta $248 maanta marka sidaas ayaa looga faa'iideystaa lacagtan waa USDT da iyada lama trade gareeyo oo ama lama iibsado waa blockchain waa coin ku dhisan wuxuu ku dhisan yahay coin kan kale isaguna ka hooseeya oo TRX la yiraahdo ama Tron ayuu ku dhisan yahay blockchainada iyo muuqaalada faahfaahsan waxaad ka heli kartaa tabarteena Telegram jeel xirfad haddii aad u baahan tahay course dhammaystiran oo crypto halkan ayaan soo geliyay telegramkeena jeel xirfad marka telegramka ayaad ku soo biiri kartaa waxaan u geli doonaa qaybta sida coin loo iibsado qaybta sida coin loo iibsado ayaan geli doonaa anigoo oo mobilka ka sharaxaya marka halkan waxaan geli doonaa marka qaybta exchange-ka marka aan galo qaybta mobilka ayaan ka sharxi doonaa waxaana ku tusi doonaa oo maanta iibsan doonaa XRP oo hadda maraysa $3.10 marka waxaan kaloo ku tusi doonaa Solana sida loo iibsado coinka sida loo iibsado oo aan Binance ka tusayo iyo Bybit labadaba aan ka tusayo dhammaan coinankan dhowr coin ayaan iibsan doonaa oo ku tusi doonaa sida loo iibsado iyo sida la iskaga iibiyo marka aad lacagta imko kale XRP aad gashato lacagtaadi kadib waxoogaa ay ku shaqeyso lacagtii waxaad markaaba ka dhiganaysaa USDT lacagta USDT ayaad ku bedelanaysaa halkan lacagta USDT ayaad ka dhiganaysaa iyadoo oo net fee laga jirayn lacagta waxaad ka dhigan kartaa BNB na sida loo iibsado waan ku tusi doonaa sida lacag looga diro BNB iyadoo oo aan wax lacag oo ama fee laga goynin markaad qof u dirayso iyadana waan ku tusi doonaa wax kale oo aan ku tusi doonaa meelaha laga eego coinanka xaaraanta iyo coinanka xalaasha ah Telegram ayaan kugu soo diri doonaa qaybta description-ka Telegramka ayaad ku biiri doontaa halkaas ayaad kala socon doontaa memo coinada xaaraanta iyo coinska dhammaan website kalena waan kugu soo gudbin doonaa muuqaalka ku xiga haddii aad halkan soo gaadhay oo aad daawanayso muuqaalkan like saarsi uu gaadho asxaab badan like-tu waxay muhiim u tahay muuqaalka dad badan si ay uga faa'iideystaan marka doonayso hadaba inaad iibsato coin ama cryptocurrency aad ku soo biirto oo aad rabto inaad investment qaybtan labadan waxaad u baahan tahay labada application mid waxa la yiraahdaa Binance hore waad u taqaaniin midna Bybit ayaa la yiraahdaa labadu waxay ku kala duwan yihiin kan amnigiisa ayaa aad u wanaagsan sida dadku sheegayaan oo aadna u wanaagsan kan kalena Bybit ayaa la yiraahdaa laftiisu waa ku soo xiga kan wuxuu kaaga baahan yahay marka hore inaad samaysato passport aad soo samaysato kadibna passport Soomaali ayuu aqbalaa hadda Soomaaliya joogto wadamada kale hadii aad joogtana ID card iyo passport iyo license intaba uu aqbalaa laakiin Soomaaliya oo kaliya wuxuu aqbalaa passport marka adiga ayaa soo samaysan doona kana Bybit ayaa la yiraahdaa ID card dhalasho Somaliland hadii aad joogto ID card-kaaga dhalashada Somaliland ayaad ku samaysanaysaa aniguna aan ku samaystay hadii aad Soomaaliya joogtana passport iyo license iyo wax walba oo kale ayuu aqbalaa labadaba waan ku tusay hore ayaan uga sameeyay muuqaal sida lacag loogu soo shubto adigoo isticmaalaya Bybit marka hadda labadaba lacag ayay ugu jirtaa marka hadda Bybit ayaan ku horeyn doonaa oo aan ku sharxi doonaa gudaha ayaan u geli doonaa Binance-tana waan ku dambeyn doonaa waxaan soo galnay application-kii Bybit application-ku waa labada qaybood horta qaybtan koowaad waxa la yiraahdaa exchange oo waa exchange iyo wallet qaybtan kalena web3 ayaa la yiraahdaa waa wallet oo kaliya waana halka la soo geliyo memo coinada iyada markale ayaan muuqaal ka soo diyaarin doonaa sida lacag loogu shubto sida loo iibsado memo coino marka memo coinka qaybtaas ayay ku dhisan yihiin web3 ayaa la yiraahdaa laakiin hadda waxaan ku bari doonaa qaybta investment-ka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qaybta investment-ka hadii aad doonayso inaad coin iibsato marka qaybtan ayaan ku sharxi doonaa halka shan qaybood ayaa oo muhiim ah ayaa ku yaala kan hore home ayaa la yiraahdaa kana market-ka suuqa ayaa lagala socdaa qaybtana waa qaybta wax laga iibsado marka coin la iibsanayo iyo marka la iska iibinayo qaybtana waa asset-ka waxa lagala socdaa lacagtaada ayaan ku taala marka asset-kuna dhowr qaybood ayuu si kala baxaa hadda waxaan ku horeyn doonaa home-ka wuxuu u kala baxaa qaybahan sare
halkan favorite-ka coinanka aad xiiseynayso ama aad saarato xidigta sida coinka imika aan xidigta saartay oo kale ayaa lagu soo gurtaa oo xidig ayaad saaranaysaa coinka qaybtan kalena waxa la yiraahdaa hot waxa lagala socdaa qaybta suuqa kuwa ugu dhaqdhaqaaqa badnaa maanta 24 saac ee ugu dambeeyay hadda kuwan ayuu sheegaya uu badbadalaa maalinba qaar ayaa soo gala coinanka marka coinankan ayaa hadda ugu sareeyay halkana waxa lagala socdaa new kuwa la soo list gareeyay ee coinska la soo geliyay Bybit imka coinankan ayaa ugu dambeeyay kan ayaa la soo geliyay kan kale ayaa la soo geliyay kuwan ayaa ugu dambeeyay dhawaan maalmihii ugu dambeeyay la soo geliyay kana waxa lagala socdaa gaineriska kuwa guuleystay ee faa'iidadoodu badan tahay halkan losariska ayaa lagala socdaa kuwa khasaarahoodu badan yahay marka gaineriskana hadii aan eegno kuwan ayaa ugu sareeya maanta marka way isbedbedelaan coinankan waana kuwa aad mar hadii aad trade u baahan tahay aad ka trade garan karto inta aad iibsato hadana dib iskaga iibin karto waana ku tusi doonaa qaybta sida loo sameeyo losariskuna waa kuwa khasaaraha oo ark sacsan ayuu ku jiraa 320 ayuu maanta coinkani khasaaray halkan ayaad kala soconaysaa marka qaybtaas waxba ku sii daahi maayo waxaan tagi doonaa marketkana waxa lagala socdaa coinankii aad favorite-ka ka soo dhigatay waa intii oo halkan waad kala socon kartaa labada waa isku mid qaybtana waa asset-ka oo waxaad kala soconaysaa lacagta ku taala asset-ku waa laba qaybood ayuu u kala baxaa qayb account la yiraahdo oo dusha aad ka arkayso iyo qayb kale oo asset la yiraahdo asset-ka kale ayaa sii galaysa asset-kan waxa ay hadda igu jira coinan aan hore u iibsaday Pepe iyo USDT lacagta hadda taala iyo lacagta Solana oo hadda aan iibsaday oo igu jirta marka Solanada ay iska iibin doonaa coin kale ayaan iibsan doonaa halkana transfer ayaa laga sii geeyaa marka qaybtana waa deposit-ka markii aad soo dhiganayso lacag ku soo shubanayso deposit marka underiska ayaad qaadanaysaa iyadana waa ku tusi doonaa withdraw marka lacag la baxayso transferna waa marka aad transfer ku sameynayso coinkan adigoo haysta aad coinkan u wareegayso marka labadan coinna transfer saas ku sameynaysan waan ku tusi doonaa hadda lacagta igu jirta waa $15 marka waxaan tagi doonaa oo aan iibsan doonaa coinkan ayaan iska iibin doonaa kadibna coin kale ayaan ku tusi doonaa sida loo iibsado waana ku sharaxi doonaa marka qaybtan kale iyadana waa mar gaar ah ayaan ka hadli doonaa marka hadda trade-ka ayaan gelaya trade marka aan galo halkan trade shaashadan waa trade laba u kala qaybsantaa qaybtan waxa laga eegaa charting-ka candleskan ayaa laga eegaa waa la bedbedelaa 15 minute ayaad ka dhigan kartaa 1 hour ayaad ka dhigan kartaa 4 hour ayaad ka dhigan kartaa 1 day ayaad ka dhigan kartaa marka waxaad halkan kala soconaysaa chartskan oo candles ah time hadii ka yahay time waa laymankaas ayuu yahay laakiin 15 minute iyo kuwaas ayaad ku daysanaysaa halkana waa more waa mar hadaad u baahan tahay bishii ugu dambeysay coinku siduuha bille aad ku eegayso halkana waxaad ka eegaysaa marka halkana waa trade marka trade lagu leeyahay waa sell iyo buy iyadu waxay u sii kala baxdaa iyaduna qaybo kale marka hadda halkan waxaad marka aad coin maqasho coinka horta aad soo eegto blockchain inuu yahay inta badan waxa kugu leeyahay inaad coin blockchain aad iibsato aanad meme coin iyo waxa iibsan coinanka waaweyn ee 15 aan hore ugu soo sharxay aad iibsato hadda waxaan haystaa oo aan hore ku tusay Solana marka Solana ayaan halkan ku qorayaa marka Solana halkan ku qoro searching-ka hadda halkan ayaan iska bedelayaa marka aan wax iibsanayo oo dhan market ayaan ka dhiganayaa markan laakiin limit aan doonayo waxaan eegayaa tirada aan haysto iyo qiimaha hadda sell hadii aan iraahdo wuxuu ii sheegayaa qiimaha aan haysto marka halkan ayaan market ka dhiganayaa markaan iibsanayo marka halkan imka sell ayaan iska leeyahay maadaama aan hore u haystay hadii halkan ay ii soo bixi weydo marka lacagtii igu jirtay Solanada marka lacagtii Solanada igu jirtay halkan ayaan ku dhufanayaa waxaan tagayaa transfer markaan tago lacagta Solanada igu jirta ayaan geynayaa qaybta funding-ka ayay taali lacagtu hadii saan u kala bedelo marka qaybta trading-ka ayaa hooseynaysa marka saa ugu dhufo magas dheh kadib magas marka tira lacagta confirm ayaad si leedahay waxay imanaysaa Solanada ayay toos u imanaysaa lacagtu qaybtan trade-ka ayay imanaysaa waa arkaysaa hadda lacagtii markii hore ma oolin laakiin hadda way taalaa line yar ayaan soo wada jiidaya markaan jiido sell ayaan leeyahay Solanadii waa arkaysaa wad iska iibsay buu leeyahay marka hadda coin kale ayaan ku tusayaa sida loo iibsado marka Solana ayaan hadda iska iibiyay laakiin imika waxaan iibsanayaa XRP marka XRP ayaan halkan ku qorayaa XRP markaan ku qoro halkan ayaan ku dhufanayaa marka waxaan leeyahay buy halkan ayaan jiidaya wuxuu leeyahay $14 ayaad siisanaysaa haddaba sidaan u ogaanayaa inta xabay aan iibsaday limit-ka ayaan tagayaa iyadana mar kale ayaan san u jiidaya wuxuu leeyahay waxaad haysataa $3 lacagtaad haysataa waa intan 14
waxaad siisatay 4 mid iyo 81 macnaha 5 xabo meelaha xabo oo coins ah oo XRP ayaa heli doontaa ayuu leeyahay hadaad iibsato markaas aan u qiimeeyo qiimeeyeen ogaado tirada aan iibsanayo marka waa iska bedelayaa market ayaan ka dhiganayaa marka market ka dhigo san ayaan ugu dhufanayaa kadibna waxaan leeyahay buy marka buy ayaan saa u taabanayaa kadib buy marka iraado wuxuu igu leeyahay saas ayaad ku haysataa hadda haddii aan tago qaybtan lacagtii waxay isku bedeshay markii hore USDT markii aan iska iibiyay haddana saloonadii wali imay soo gelin XRP hadda ay soo galaysaa markaas saas ay ku soo galaysaa hadda wali imay soo gelin wata XRP waxaan haystaa imika 4 xabo oo XRP marka coinsaas ayaad u iibsanaysaa una maal gashanaysaa marka investment ayaad hadda coinkaas ku samaysay coinkaasi ayaad ka haysataa 480 oo u dhiganta ilaa 5 xabo meelahaas u dhiganta lacagta laga siiyay $14 marka hadda coinkaas ayaan haystaa laakiin haddana waxaan rabaa inaan iska iibiyo sel ayaan tagayaa intaas ayaa laga sameeyaa marka coin la iibsanayo laakiin waxa marka hore aad soo samaysato Bybit inaad soo samaysato verified ka soo dhigato verified kana waan ku tusi doonaa hadda waan iska iibinayaa sel ayaan leeyahay wuxuu leeyahay waad iska iibsay marka home-ka aan tago halkan ayaad ku soo dhufanaysaa inuu akoonku verified ku yahay ayaa muhiim ah akoonku waa inuu verified ku yahay muuqaal hore ayaan ka diyaariyay Bybit sida loo samaysto muuqaalka tag muuqaalkaas soo samayso waa kan muuqaalku verifiedna saas ayaad u samaynaysaa qaybta Bybit iyo coins loo iibsado intaas ayaan kaga baxayaa qaybtan web3 ayaa la yiraahdaa qaybtana waan soo galay hadda web3ga ayaan joogaa waxay ugu jirtaa lacag yar oo sanaatiya oo salona marka web3ga doonayso inaad ka faa'iideysatana salona ayaad soo iibsanaysaa kadibna lacag salona ayaad halkan ku soo shubanaysaa trade-ka ayaa tagaysaa marka trade-ka waxaad eegaysaa kuwa newga ee soo galay kadib newgan ayaa tagaysaa waxaad tagaysaa marka coinkan ayaad investment garaysanaysaa kadibna trade ahaan ayaad u isticmaalaysaa isagu wuxuu ku fiican yahay in shaashadii weyneed ee markii aan ku tusayay aad ka trade garayso mema coinka iyo sida loo trade gareeyana muuqaal gaar ah ayaan ka samayn doonaa Bybit halkaas ayaan kaga bixi doonaa hadda waxaan geli doonaa Binance sidaan hore u soo sheegnay akoon kasta wuxuu u kala baxaa laba qaybood isagna wallet iyo exchange oo halkan web3 ayay u taagan tahay walletku marka Binance-na saas oo kale ay u kala baxdaa Binance hadda asset ayay halkan ku qoran Binance-na marka doonayso hadaba inaad wax ka iibsato halkan asset-ka ayaa tagaysaa asset-ka waxa hadda ugu jirto lacagteeda aad arkaysaan halkan coinankaas ayaa iibsan saa arkaysaan BB iyo Bonk iyo XRP ayaa iibsan marka halkan lacag kale oo coinkaas aan iibsaday iyo BTC oo mar hore yar iibsaday waxoogaa ka yaalaan sanaati iyo Korea ayaa ku jira marka halkan home-ka ayaa tagaysaa Binance laba qaybood ay u kala baxdaa halkan hadda ku dhufto halkan haday ka tahay Binance Lite hadda Binance Lite igamaha hadan Binance Lite ka dhigto saasay noqonaysaa marka laba ay u kala baxdaa marka adigu kan sare isticmaal oo halkan iska Binance Prodan ayaad isticmaalaysaa markasta Binance Pro marka isticmaalayso asset-ka halkan ayaad ku dhufanaysaa asset marka tiraado kadibna asset-kaas ayaad lacagtaadii wax walba ka arkaysaa asset-ku dhowr qaybood ayuu kala baxaa spot funding future marka dhamaan kuwaasna waa marka transfer lacagta spot-ka iminka ay taala markan geysanayo FU-ga markan geysanayo halkaas ay lacagta laga wada arkaya home-kan iyo market-kan waa sidii hore haddaan hore kugu soo sharxay halkan new kuwa cusub ayaa lagala socdaa waa kan kuwa cusub ee soo galay losariski iyo intana waa isku mid kii hore bay ka sameeyeen marka trade-ka ayaan tagi doonaa isna sidii si lamida baa loo iibsadaa hadda haddaan doonayso inaad salona iibsato halkan ayaad ku dhufanaysaa kadibna halkan tirada soo u jiidaysaa salona inta haysato buy baad leedahay limit-kana waxaad kala soconaysaa tirada iibsanayso marka aad iska iibinaysana sell baad leedahay halkan markasta market ka dhig haddii aan halkan market aanay ku hayn halkan yar ay hoose ay wixii aad iibsatay ama coin-ka aad iibsatay waxoogaa yar taagnaanaya marka halka yar hoose ayuu cancel ku soo qoraya cancel baad iska oranaysaa kadibna mar kale ayaad intaad dib u furto market-ka geyso kadibna aad dib iskaga u iibsanaysaa marka iyadana halkaas ayaan ku dhaafaya marka waa isku mid waxba kuma kala duwana marka qaabkaas ayaad u iibsanaysaa web3-gana casharka ku xiga ayaan ka soo diyaarin doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu